السلام عليكم. الحمد لله soo quraacani waa soo baxnay waxaan imaanay IKEA dukaanka waxaa laga leeyahay Sweden laakiin Mareykanka uu ku yaala marka waxaan rabaa inaan ka gato nalalka qolka jiifka labada gees online markaan fiiriyo waqti dheer oo igu qaadana waxay dhaheen bisha December aan shipping bilaabeena marka dukaanka imaaday hadaan ka gadan karo iyo hadaan inta ka order kareysan karo marka meeshaan dil imaado wuxuu ku qurux badan in kasiyar lagu wareego waa jeclahay inkastoo aan dukaan kale u sii ordaayo insha Allah hadda meeshaan waa ka baxa waxaan aadaa Burlington waxaan ka raadsan rabaa some decoration masha Allah waa kana Burlington waxaan rabaa inaan ka gato flowers sida dadka Mareykanka joogaana yaqaanaan dukaamankan oo kale waa laga adeegtaa waxaa laga gataa sharaxaada halkan kelima ahaan 4 iyo 5 way ka badan yihiin laakiin zaid waxaa lagu adeegtaa Burlington, Marshall, Home Goods, Ross, TJ Maxx intaas oo badannahay ما شاء الله وأجدين سوق قروح بدنيا هاي decoration qaarkoodii marka waqtiga winterka la gaaro mar walba waxaan jeclahay gurigeyga laba shay saddex shay oo kale inaan ka bedelo marka waqtiga hadda winterkan oo bilaabmaya waxaan jeclahay inaan some decoration aan ka bedelo dhaqaatiirtu waxay dhahaan every 6 months hada gurigaaga hal shay mise laba shay ka bedeshid waa dareemaysaa indhahaagii maskaxdaadii waxaa ka dareemaysaa different gurigaaga dhexdiisa marka anigana waxaan dadaalayaa saas inaan dareemo maadaama la caafimaadku ku xiran yahay marka waxaan rabaa some of decoration inta aan ka gato mana rabi lacag badan inaan isticmaalo just waxaan u baahanahay wax yar la inaan isticmaalo yani wax qaali ma rabi inaan isticmaalo sida hadda dhaladan oo kale maanta sale waaye wuxuu ahaa 150 today waxa waaye $24 marka alxamdulillah waa qaadana labadan xabo waa jeclaaday qolkeyga u jeclaaday hadii uu iigu sameysmo qolkeyga hadii kalena meel kale u raadsana aan dhigto sida barkimaha oo kale barkimaha inaan gataan raba laakiin ma rabi hadda inaan inta aan ka gato sababtoo ah in fadhigii aan rabo waxa lagu yiraahdaa wuxuu imaanaa in December wuxuu qaadanaa 20 ilaa 26 weeks waqtigan dalbaday ilaa hadda alaabta gurigeyga waa ka bixiyay fadhi ma iyaalo waxba ma iyaalo so alaabtiyan dalbaday alaabtiyan sugaya insha Allah alaabta markii la ii keeno marka waxaan idin share gareynaa waqtigii aan alaabta gurigeyga ka bixiyay iyo waqtigan helay inta bilood u dhaxeeyay insha Allah everything waa idin la soo socodsiinaa hada kalarada inta aan ka baxsanayo waxa waaye kalarada aan rabo inaan bedelo marabi fadhi noocan oo kale because leather hadan iska bixiyay marabi leather inaan gato waxaan rabaa maro oo caadi ah inaan kuraas caadi gato sariirna marabi noocyada inaan gato because sariirta hadda aan gurigeyga ka bixiyay was very heavy waxa waa markii la soo gelinayay dib markaan bixinayay dib weyn oo ahaa marka ma barabi inaan qaato wax culus mise wax oo yani oo zaid weyn just need a simple inaan ka dhigo barkimaha kalarka aad aan u jeclaaday inaan gato laakiin saa idin sheegay ma gedin kari kuraas ma iyaalo marka insha Allah markaan kuraasteeda gato aan dhigto aan waxa idin la share gareynaa waqtigii aan bilaabay ilaa iyo waqtigii aan helay insha Allah hadana gurigeyga aan u laabanaa insha Allah biidnillah maqriba la gaaray marab inaan inta waqtigan joogo banaanka ilmihi aan soo watay ilmaha inaan dhaqso celiyaan rabaa aan guriga ku celiyo markaan guriga aado insha Allah waxaan rabaa inaan cabo shaah yar aan karsado ma sha Allah waa soo diyaarsaday waxa waaye laba saac ka hor waaye oo yani waa saacada maqrib waaye marka aan dugtay kadib aan shaahigan aan karsaday waa ku ujeedaan ma sha Allah mar walba waxaan jeclahay waqtiyadan oo kale waqtiyada qaboobiyada inaan shaah yar cabo
aan iska jeclahay oo shaah cadeys ama waa isku darsadaa ama waxaa waa kala gooni ah u samaystaa. Sokortan haddaan ku yareeyo in case oo kale sokor kala meesha dhigtaa oo aan ku darsado so dhadhan uu igu yeelo yacni sokorta uu kasir uu yacni uu aan taste gareeyo maadaama rootiga inta ii yaalo aan sokor lahayn. mar walba waxaan dadaalaa inaan cuno hal shay before 8 o'clock. marka insha Allah idinkana waxaa idin rajeynayaa walaalahayga inaad ka heshaan fiidiyohayga. please ha iloobina inaad subscribe share like dhahdaan hadduu ilaahay nacam dhaho. fiidiyaha kalena insha Allah waa idinla share gareyn doonaa hadduu ilaahay nacam yiraaho insha Allah biidhnillaahi kariim.